inta badan markii la maqlo fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse sanadihii dambe dhanka jacaylka waxa ay ka ahaayeen qays iyo liila balse hadda waa lamaano noqday hooyii aabbo soomaalida ayaa ku maamaada waxaa loo dhibtoon looma dheefsado okay in yar ii sug aan dib ugu laabano sanadihii ugu xumaa lamaanaha hodan iyo mursal iyo sababtii ka dambeysay guurkii maxamed aalto iyo hodan cabdiraxmaan imaatinka hargeysa ee hodan cabdiraxmaan iyo isdhexgalka labada fanaan kadib waxaa dib ameerika ugu laabatay hodan mursal leh hargeysa ayuu la jiifay xiisiya kalgacayl u qabo hodan balse mursal waa xaaslo leh caruur hodan oo iyada naftigeeda dabeesha jacaylka marti ayaa mar qura indhaha kaga dhufatay mursal hees cajiiba mursal oo ay ku maqan yihiin dambilihii jacaylka ayaa heesta hawada ka qabtay kuna qanciyay in asiga qudhiisa lagu saaqay balse duruufo jiraan mursal muxuu ku jawaabay balaadba qofkaygii oo ii jecel ishayduna qaban karin qoraal kuma doogsadee qurbaha iiga dhoofiyo qamuuyaadu waa dartaa hodan ayaa aad u soo jiidatay jawaabta mursal mar quraana isla kala jiiday heestan soo socota intaanay gelin qabriga ee loo qodin xabaal qudhayda badbaadiyo macaano xabiibi qalbiyo waxiila qabo mursal oo la calool madow ereyada ka soo yaray hodan asna dhibano u yahay ayada ayaa asna ku qanciya riyada iyo qorshihiisa أنا سوقته قرمي رتان هبون ولا شكولا قيب سنلا ولا شكولا قيب سنلا waa sheekadu waa dhiidhin nimco walba nusqaanteeda ayay leedahay waxaa sheekada kor kala socotay mursal xaaskiisa qadraslimo waxaana la saaray cadaadis tooshweyna laga daba qaatay balse hodan waxa ay la dhacday farxad maadaama mursal ku yiri rugtaan degi lahayn baan qorsheenaya wixii saacadaha isguraanba waqtigana socdaba mursal buu qareerkiisa kaga furmay si uu u dejiyo waxa uu qaaday hees oo xaaskiisa ku amaanayo kuna qancinayo balse kama maqlan dhimbilihii jacaylkii hodan laqsiisay muxuu ku amaanay xaaskiisa ila dhageyso markay dan isku raacaan labada danka loo raray aqal dhidibka loo taagayba hodan oo dhigaheeda ku dhaceen amaanta ayaa isku samarsiisay in calafka adeego maxay tiri iyadana على نصيب عوضها في شاف عسينا الربيبة نشان نفتني mursal ayaa asna maqlay fariinta heesta cusub ee hodan balse kuma uusan falcelin karin oo doobirka qadrasinimo isaga ayuu saarnaa dhaqdhaqaaqiisana waa la xadiday balse hodan ayaa u dulqaadan weysay aamusnaanta mursal iyo xiriirka u jiray waxaana marnaba ka ogeyi weysay maalmihii quruxda badnaa hargeysa kusoo wada qaateen ayada iyo mursal hees ma dhibtay ilaa waadhal falaani mar quraayo afka labadiisa daan kala jiiday mursal ayaa aad uga warhelay heesta aadna uga xumaaday balse waayaha iyo waqtiga ciile kamana bixin jacaylka uu qabay hodan iyo sida qalbigiisa ku hanatay ayaasna ku amaanay hees socodka laafiyaha timasina hadhaafiyo sunaca wajigiyo indhaha hortada sulubkee lagu simay cabaaryaha balse hodan oo maseer iyo jacayl qalbigeeda ku wada dagaalamayaan ayaa mar kale mursal afka u furatay mursal oo xanaaqsan ayaa mar kale jawaab cadaadis ah siiyey hodan maadaama ay dareemi weysay culayska haayo degdeg fara badana ka muuqdo dhankeeda ballanta horena ay ahayd in laisgaabay ayaa asna ugu jawaabay sida tan kastoysadkaa tahay socod ruuxi leedahay saakayno
markaynu kulannay saxal kuma raxlayn karo